golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa mar kale ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii afisyooni ee u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. baaqan ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii shir ay warbixin uga dhageysteen wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ee Soomaaliya diblomaasi James Wan, walow uusan jirin bayaan guud oo goluhu soo saaray maadaama shirkan ahaa mid albaabadu u xiran yihiin. dalalka qaar ayaa faafiyey qodobadii shirka looga hadlay iyo arrimihii ay ka yiraahdeen xaaladda cakiran ee Soomaaliya. ergada Norway ee golaha ammaanka ayaa Twitterka ku daabacay dariiqa kaliya ee u furan Soomaalida waa in dib loo bilaabo wadahadaladii doorashada ee ku saleysnaa heshiiskii 17 September. waddanka Ireland oo isna ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa diray fariinta la mid ah, waxaana qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi loogu baaqay madaxda Soomaalida inay dib u soo nooleeyaan wadahadalkii doorashada lana qabto doorasho loo dhan yahay oo waqtigeeda ku dhacda. safiirka Indiya ee qaramada midoobe ayaa soo jeediyey isna in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku laabtaan madasha wadahadalka in la hirgeliyo heshiiskii 17 September iyo soo jeedintii guddiga farsamada ee Beedhabo in caqabadaha siyaasaddu ay dhiirigelinayaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah iyo inay soo dhaweynayaan dadaalada midowga Afrika. waa sidoo hadalku u dhigay safiirka Indiya ee qaramada midoobe. waa markii labaad oo shir albaabadu u xiran yahay uu golaha ammaanka ka yeesho xaalka Soomaaliya sanadkan gudihiisa, balse kulankan wuxuu imaanayaa xilli khilaafka siyaasadeed uu meel halisa gaaray iyadoo isu-tanaasul la'aan ay weli jirto. xiisadda waxaa cirka ku sii tolay muddo kororsiga golaha shacabku sameeyey 12 bishan Abriil, kaas oo ay ugu yeereen jihaynta doorashooyinka dalka. beesha caalamka ayaa si wada jira waxay u sheegtay inaysan taageeri doonin muddo kororsi, doorasho aan la isla ogoleen iyo fal kasta oo keeni kara amni darro iyo foodo. madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga ah uu idlaaday Farmaajo oo isbuucan booqday waddanka Kongo ayaa hogaamiyaha dalkaas sidoo kalena ah gudoomiyaha midowga Afrika waxa uu ka codsaday inuu soo farageliyo xalka ismarwaaga doorashada. maxamed yaxajiin, warbaahinta Nation, Muqdisho.